Assalaamu calaykum. Waxaa qasab ah inaad maqashay ama ku aragtay baraha bulshada lacagta Bitcoin, taasoo lagu tilmaamay inay tahay lacag electronic ah ama lambar ah oo aanay ahayn mid warqad ama bir ah. Wax yar kadib waxaad maqli doontaa qaar ka mid ah xaqiiqooyin ku saabsan lacagta electronic ah, kuwa oo ku shaqeeya cryptocurrency. Riix subscribe si aad ugu soo biirto kanaalka, hana hilmaamin inaad like saarto haddii aad ka hesho videogan. Cryptocurrency waa lacagta qarniga 21aad ama lacagta mustaqbalka. Waxaana jira dhowr lacag oo ah noocan electronic ah. Waxaana soo qaadanaya kuwooda ugu waaweyn. Bitcoin waa tan ugu weyn. Waxaana lala barbardhigi karaa lacagaha kale sida dollarka ama euro-ga. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo ay ku kala duwan yihiin. Waxayna ku fiican tahay lacagtan in iyada oo dhan ay tahay mid digital ah oo aan la daabicin. Bitcoin waxaa la daahqaaday 2008 waxaana daahqaaday Satoshi Nakamoto. Waxaana xusid mudan in Nakamoto uu haysto 1 milyan oo coins, taas oo hadda u dhiganta 1.1 bilyan oo dollar. Waxaana la yaaban yahay sida uu ku soo saaray ninkan. Waxaana dadka aaminsan yahay in shirkadaha waaweyn sida Samsung, Toshiba, Motorola iyo Nakamochi ay yihiin kuwa dhabta ah ee soo saaray. Markii ugu horeysay 2009 ayaa la bilaabay ganacsiga Bitcoin. Bitcoin waxaa loo isticmaali karaa sida lacagaha adduunyada oo caadiga ah. Waxaana wax uga gadan kartaa internetka. Waxaana u bedelan kartaa lacagaha caadiga ah sida dollarka iyo lacagta geniga sterling-ka. Waxayna dadka ka shaqeeya aaminsan yihiin in hadafku yahay bedelidda dhaqaalaha adduunyada. Sanadii 2010, qof ayaa bixiyay 10,000 oo Bitcoin ah si uu u gato 2 xabo oo pizza ah. Laakiin nasiib darro, 2013 isla lacagtii uu ninka ku bixiyay ayaa qiimaheedu gaaray malaayiin dollar. Dadka haysta lacagta Bitcoin waxay awoodi karaan inay diraan kumanaan Bitcoin ah meel walba oo adduunyada ka mid ah daqiiqado gudahood, iyada oo aan laga qaadaynin wax lacag dheeraad ah. Qiyaastii maalintii waxaa la isku diraa, la kala iibsadaa ama la isku beddeshaa ku dhawaad 200 milyan oo dollar. Waxaana shirkadani lacagta ganacsigeedu u dhaafay lacagta shirkadda Western Union oo ah 8 bilyan oo dollar. 5 sano ay ugu horeysay, shirkadani waxay qiimaha halkii coin gaaray $1,000. 2013 ayuu dhaafay qiimaha dahabka isagoo dhigay rikoor cusub. Waxaana ka sii darnayd markii uu intaas oo dhan ka sii saramaray bishii August 2017, waxaana halkii coin gaaray $7,000. Qof walba oo gatay 100 Bitcoin ah sanadii 2013 isagoo halkii coin ku iibsaday $100, hadda qiimaha qofta uu haysto waa $7,000. Taa ayaa ah sababta keentay inay caan ka noqoto daafaha dunida iyo in ay badato dadka internetka ka raadinaya. Laga soo bilaabo markii ay bilaabatay gadashada Bitcoins, waxaa la isticmaalay 36% marka la eego tirada guud ee taala dunida, taas oo gaaraysa 21 milyan oo Bitcoin ah. Micnaheedu waxay tahay in ay jirto 13 milyan oo Bitcoins ah oo ilaa hadda aan la isticmaalin. Nin u dhashay Britain oo lagu magacaabo James Wells ayaa si qaldan wuxuu meesha qashinka lagu rido ku tuuray haadiska ay ku jirto 7,500 oo Bitcoin ah, taa oo la qiimo ah 7.5 milyan oo dollar. Waxaa lagu ilaaliyaa lacagta Bitcoin jeeb electronic ah sida lacagta caadiga ahba loogu ilaaliyo bangiyada. Haddii uu kaa lumo xogtii aad kula bixi lahayd, ma ahan wax la soo celin karo, ammaanka oo aad u adag awgeed. Lacagtan ma ahan mid la xakamayn karo oo ma yeelayso inay hoos u dhacdo ama kacdo sida lacagaha kale ku dhacdaba. Bitcoin ma ahan lacagta kaliya ee electronic ah oo waxaa jira ku dhawaad 60 lacag oo sideeda oo kale ah. Waxaana ka mid ah Litecoin oo tarjumaysa qalinka ama silverka ama fidada, Novacoin, Nemocoin, Peercoin iyo sidoo kale OneCoin. Germany ayaa ah waddanka ugu horeeyay ee si rasmi ah u ictiraafa lacagtan. Dowladaha Carabtana waxaa aqbalay isticmaalkeeda dowladda Urdun, halka Dubai ay ku taalo maqaayad pizza lagu iibiyo iyo ATM sarifa lacagtan, halka Thailand ay tahay waddanka si cad u diiday sanadii 2013. Waxaana soo labeeyay Shiinaha. Hay'adda sirdoonka Mareykanka ee FBI ayaa haysta kaydka ugu weyn ee adduunka ee Bitcoin. Sidaan hore idinkugu sheegay,
Bitcoin kaliya ma ahan shirkadaha ku shaqeeya cryptocurrency. OneCoin waa mid kale oo iyana la saadaalinayo inay gaari doonto heerka Bitcoin. OneCoin waxaa bilaabay Dr. Ruja oo asal ahaan ka soo jeeda Bulgaria sanadii 2014. 8 Oktoobar 2018 waa waqtigii la filayay in suuqa la soo dhigo, laakiin dib ayaa loo dhigay. OneCoin waa mid ka mid ah shirkadaha ugu koritaanka badan markii loo eego dadka isticmaala iyo waqtiga la bilaabay, waxaana isticmaala 3.4 milyan oo qof. OneCoin waa shirkadii ugu horeysay ee cryptocurrency ah oo samaysa hab online ah oo ay dadka OneCoin isticmaala wax isaga gataan, iyadoo hadafka laga leeyahay ay tahay in OneCoin laga isticmaalo dunida oo dhan. Dr. Ruja hadafkeeda waxa uu ahaa in 1 milyan oo ganacsade ah ay ku biiraan Real Sheka, taa oo hadda maraysa 459,000, iyo inay gaaraan dadka haysta lacagta OneCoin 10 milyan oo isticmaale, taa oo iyana hadda maraysa ku dhawaad 3.5 milyan. Marka loo eego Dr. Ruja, OneCoin waa shirkadda ugu ammaanka badan shirkadaha cryptocurrency. Qiimaha OneCoin waa mid degan oo aan isbedelaynin. Magacyada shirkadaha hoostaga OneCoin waxaa ka mid ah One Life, One Forex, One Academy, One World Foundation, XCoinX iyo kuwo kale. Qiimaha halkii coin ee OneCoin waqtigan waxa uu marayaa $34, iyadoo la rajeynayo inuu sare u sii kaco sanadaha soo aadan. Intaa waxay ahayd xog yar oo ku saabsan cryptocurrency iyo lacagaha elektarooniga ah. Intaas ay inoo joogo mawduuceennii maanta. Wassalaamu calaykum.